soo gaaray iyo dadka qurbaha tagaan niga warramay meel alliye meesha dadkii Soomaalidu ay tageen runtii masaajid bay iibiyeen madaaris bay ka fureen imaamiyay ka noqdeen gabdhihii Soomaaliyaadku meel walba xijaabkii jilbaabkii bay muujiyeen halin anigoo wada gaari baan saarnayno qaaradda Yurub Jarmalka ahayd marka gabadh Soomaaliyeed oo xijaaban oo niqaaban baa wadada ka talaabaysa markaa caddaankii markaa baabuurta watay baan yar eego sidaa u eegay moogta was garab taagana dhowr baabuur sidaas ay dhaha wada ilaadeen markay gabadhii arkeen kii shoofaarkii baan ku yiri bale gabadha shujaacad ilaahay jalla wa ala yaani wada uu siiyay islaan يا لبا gabdhood bay ka keentay magaalo 6 saac tareen la soo socotay markay ayna maqashay alka jamaacad ba marayso dumarkan magaalada kula hadlaynin 6 saacadood bay tir ayaan tareenka metroga soo saarnaa Jarmal dhexdeeda iyadii jilbaab gabdhaheegii niqaab markaasaan ku iri tareenka soo raacday kuwa gaalada ka waran waxay tir gaal maxay iga galay tir gaal ma u joojinayaa bay tir xamar ka mideen Allahu akbar gaal maxay iga galay tir aniga aakhira u socdaa Sheekh Xuseenow gabdhaha iga caruurteedaba xijaabkaaba ku barbaariyay tir mana dhigaynay tir waana dharkayay tir in dhibsanayaan laakiin uma joojiyay tir waa dad ilaahay karti galiya ma ogtaa marka meel badan waa laga faa'iideystay saajidii dacwadii ijtimaaciyadii hadda Mareykan magaalada Chicago lagu qabtay bishiina dhaaftay July kulan ay ka soo qayb galeen taqriiban 80,000 oo qof Soomaalidu kaliya waxa la ii sheegay in 2,000 bay ahaan 2,000 oo Soomaaliya ka soo qayb gashay laba jamaaco Djibouti u durna ku maqnay la iminka dibna wayna soo gaadho dadkii dhulka tagay ubadkay la tageen kuwa ay dhalaan وايز ديسين كواس وقوها ديت والله سلامك دويان هذا ما غشين يا كوي